هلا عنوري وعلامتك خير له وعوغ شكاركي او عاوتيري ويكن وعوغ شكاركي او عاوتيري ويكن sanad guradii 11 ee ka soo wareegtay markii xornimada ay kala soo noqotay Soomaaliland dawladda loo oran jiray Soomaaliya 1918 May ayaa maanta si balaaran loogu xusay magaalada Berbera iyo guud ahaan gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland waxaana isku soo baxa balaaran lagu sameeyay qariyada magaalada Berbera iyadoo xuska ay ka qayb qaadanayeen bulshada kala duwan ee magaalada Berbera ee shanta xaafadood sidoo kale waxa xuska qayb lixaad ka qaatay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil iyadoo ay soo qaban qaabisay dhammaan iskuulada dugsiyada sare iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Berbera wasaaradda caafimaadka dawladda hoose degmada Berbera takada hamakeedka shidaalka magaalada Berbera iyo wakaaladda biyaha ee Berbera waxa kale oo ka qayb qaadanayay xuskaasi ciidamada booliska ilaalada xeebaha iyo ciidamada dadamiska kuwaas oo gaardi socod luga ku mariyay qariyada magaalada Berbera oo soo buux dhaafiyeen kumanaan kun oo ka tirsan shacabka magaalada Berbera waxaana munaasabadaasi bulshada kala qayb qaatay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland wasiir ku xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya mas'uuliyiinta gobolka Saaxil ka degmada Berbera xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada golaha deegaanka degmada Berbera maareeyaha tikada Soomaaliland maareeyaha wakaaladda biyaha Berbera iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyntii waxa munaasabada ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwan ee ka soo qayb galay xuska sanad guuradaasi iyagoo dhamaantood xusay sida qadiyadda Soomaaliland ay ugu weyn tahay maalinta aynu halkan u taaganahay isugu nimi midaynu isaga sheekaynayno maaha waa midaynu 30 sano aynu maalin walba maanta oo kale xusaynay sida daraadeed maalin walba isxasuusin iyo adkayn iyo inaynu guntinta sii geejino ayuubay naga tahay ee wax cusub isu sheegi mayno waxaan halkan aad iyo aad uga hambaliyaynayaa bulshaweynta gobolka Saaxil dhammaan todobada degmada iyo degmada magaalo madaxda sida wanaagsan ee looga qabtay xafladan ama looga dabaaldegay salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan leeyahay hambalyo ilaahay amniga hayno adkeeyo ilaahay xuska ku xiga inagoo nabad qabna amniga barwaaqaysan ilaahay inuu gaarsiiyo qarannimadeedii way taabaqaaday way taabagashay shariifayinta inaan qoodi ku hadlo shariifayinta inaan imadno qandalay wadaha haweenka Soomaaliland waxa aan leeyahay alxamdulillah ilaahi Soomaaliland naga dhigay alxamdulillah ilaahi haweenka islaamka naga dhigay alxamdulillah ilaahi nabadgelyada nasiiyo alxamdulillah waa maalin u baahan inaynu mar walba weynayno oo aynu ilaalino walaalayaal maanta halkaa waxaynu ku soo gaadhnay horumarka waa nabadda iyo magaranaysa ismaqalka iyo tanaasulka ayaynu halkaa ku soo gaadhnay waxaan u sheegayaa ummadda reer Soomaaliland ilaahay subxaanahu wa tacaala calankaa tawxiidku ku qoran yahay inaanu horta marnaba noqonayn cid kastoo guri ka haysa inay Soomaali mar midowdo waxaan leeyahay canduftiina dib u laqa waxaan hambalyo qodobka badaween waxaynu taagan waynu harsanaa oo waxa soo ciidanka ku galaamay yihiin calanka tawxiidku ku hadlayay la ilaaha illa Allah rasuulullah oo sabab qaadnay weligoos loo dhigay kaas waxaan leeyahay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa baan harsanaa waastaqbalnay qodobka labaad waxaan leeyahay dadka ugu wadaaqay waa horumaray oo dad dhamaystiran oo wax kasta oo la leeyahay sababta ugu dambeyntii waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarada reer Berbera iyo dhalinyarada gobolka Saaxilba gobolka horumarka ka dhamaanaya dalka Soomaaliland waa dal go'ay oo goostay oo go'aan hore u gaaray wax midho oo 30 sano laga hayaana ma jirto
waxaan odhan lahaa dadkan waa dad damqanaya waa dad la dhibaateeyey waa dad kaaraha la mariyey waa dad la dhibay way boogtii baa damqanaysa ha ku dhaqdhaqaajinina waranka ka kugu taagay iyo ka kugu dhaqdhaqaajiya waxaa daran ninka kugu dhaqdhaqaajiya dadkana waa dad damqanaya hal la dhowraan odhan lahaa caalamkan sheegaya faraxsanahay oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan munaasabadda 18 May kaga qayb galo magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil oo aan dadweynaha degmada Berbera iyo gobolka Saaxil kala qayb qaato waan ku faraxsanahay runtiina aad iyo aad baan ugu farxay ilaa xalay intii aan joogay horumarka weyn iyo isku dubaridka iyo nidaamka iyo qorshaha iyo kartida iyo dadaalka ka muuqda ee gobolka iyo gaar ahaan degmaduna ay gaadhay oo ay ka mid tahay xaruntan aynu fadhino oo dhowr tobaneeyo maalmood lagu hagaajiyey oo lagu diyaariyey aad baan ugu faraxsanahay inaan dabaaldegan aan halkan maanta joogo oo magaaladeedii ah munaasabadan waxay waa munaasabad farxadeed ciideed waxaan hambaliyeynayaa qaranka Somaliland iyo dadka Somaliland meel kasta oo ay joogaan galab hambaliyo waxaan xusayaa kuwii u horay naftooda iyo dhiigooda xornimada Somaliland inta aan inala joogin maanta Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa naxariista jannada ka waraabayo inta inala joogtana caafimaad iyo cimri dheer baan ka baryaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ujeedadan kalena munaasabadan waa laba mid waxa weeye inaynu xusno maalintan weyn oo kor u qaadno midna waxa weeye inaynu fariin diro caalamkiisa kale halkii qadiyada laga taagan tahay waxaan filayaa labadaba inaynu ku guulaysanay insha allah biidnillaahi kariim mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal muwaadiniin waxaynu halkan maanta ku soo gaarnay oo halmarkaa ballaaneen u gaarnay wuxuu ahaa nabad degenaansho midnimo iskaashi dhinaca kale waxaa xuska sanad guurada 18 May lagu xusay badda magaalada Berbera iyadoo dowlatus balaadhan ay ku muujinayeen ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland kuwaasoo watay doonyo ay ku xardhayeen caalanka astaanta waxa Soomaaliland ee caalanka saddexda midab sidoo kale waxa qayb ka ahaa bulshada kala duwan oo iyaguna watay doonyaha dadka shicibku ka haystaan kuwaasoo iyaguna xusayay mas'uuliyiinta kasoo qayb gashay munaasabadaas ayaa qayb labaad ka ahayd xuskaasi inay kala qayb qaataan ciidanka badda dowlatuska balaadhan ku muujinayay Sadiq Arab Sulayman telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Berbera dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed